kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale waa maqalkii lixaad. sheekadan waxaa qoray Warfaa Bayle, waxaa yeelan doontaa qayb labaad. habeen dheer ayaa galbaday. waa habeen saacadihiisu ay kala badan yihiin intii uu ku yaqaanay. waxa uu fadhiyaa kaabada qol madow oo ka mid ah guri ka kooban 4 qol. waa 4 qol oo albaabadooda mid mooye inta kale is eegayso. daarad ciid ah oo guluub naaqus ay kasoo lusho ayaa hor fidsan. geed miri ah ayaa bartanka daaradda ku yaala. mir sigaar ah oo dabkeedu farihiisa kusii siqayo ayuu intii u dambeysay sababada u diray, oo qiiqii muddo ilbiriqsi ah laabtiisa ku abuuray. dabadeedna cuntub qiiq ah hortiisa ku firdhiyey. waxa uu xidhan yahay macawis randa ah oo jactadsan iyo garan fiin ah. labadaas shay waxna ugama sareeyaan waxna ugama hooseeyaan. muuq ahaan waa nin dheer oo caato duuqaysa ah, midab ahaanna waa maariin madow xiga. da'na sodomeeyada ayuu fooda la sii gelayaa. koodad wejiga kasoo fiiqan iyo indhaceel la moodo sida ay u gureen ayuu ku eegayaa quraanjo horyaacaysa. wax kasta uu eego maskaxdiisu fariin kasoo celin mayso. iyada ayaa iskeed isaga tallansan. hirarkii fakarka ee fiidkii maangadiyey ayuu iska dul sabaynayaa. xasuus walbaana mid kale ayay soo xasuusinaysaa oo tagtadii ayuu raad gurayaa. sanadba sanadkuu ka horeeyey ilaa bilowgii noloshiisii ayuu maankiisa dib ugu jeedaaliyey. waa fakar taxane ah oo noloshiisa uu ugu kuurgalo sida qof dhintay oo taariikh nololeedkiisii qabriga loogu keenay. waxba iskama bedelaan noloshiisa. waa u seexdaa oo soo toosaa, dabadeedna gelinka iyo wixii ka horeeyey ka fikara. goobadaas ayay noloshiisu ku wareegtaa. waa nolol bilaa sareeda ah, qoomamase ka dheer. sababtoo ah in uu noolaado iyo in uu geeriyoodaba waa laba gudboon. maya waa laba daran oo qadarku dooransiiyey dhalashadiisa ka hor. caawa sidii hore ma aha oo xasuuso hore ayuu duunkiisa kasoo jafayaa. xasuus walba oo uu galo waxay ku jahaynaysaa meel daran oo dubaaqiisa la hugmayo. markaas ayuu is-ilowsiinayaa oo sigaar kala shidayaa. sideedaba xasuustu waa caalwaa qofku nayaayiro ka raadiyo marka waayuhu ku cuslaado ee timaadada odoraskeeda uu ka quusto. isla sidaas oo kale xasuustu waa lidka rajada, waayo markasta oo rajadu qurux yeelan weydo galladihii tagtada ayaa wiridh noqda oo xasuusta ayaa noqota cudbi uu qofku ku dhayo boogaha uu waayuhu u yeelay. sababtaas ayuu isna uga xun yahay in uu maskaxdiisa la kaliyoobay, in uu fakeray iyo in uu leeyahay nolol hore oo uu waayaheeda laabta weli ku sito. waxa uu isweydiiyey markii ugu dambeysay ee uu nolol ujeeddo leh noolaa. qalbigiisu xasilnaa, aayahana waxsan ka rajaynayay. waa 3 qaamuuska noloshiisa la moodo in hal mar istiikad laga mariyey. waxa uu dib ugu celiyey xasuusta 20 sano hortood si uu u goobo macnaha jiritaankiisa. waxa uu ka fikirayaa wixii uu u noolaa, oo muxuu noolaan karaa wiil yar oo miyi ka soo xarooday intii badnayd ee noloshiisa tuulo ku soo qaatay. dabcan farxad in lagu dilo oo nafsad ahaan iyo jir ahaanba lagu waxyeeleeyo haddii aad necbayd waxa kaliya aad u noolayd waxay ahayd inaan waxba lagu yeelin. taasaana farxad ku ahayd. sidaas ayuu u fekeray. hanka ilmaha Soomaaliga ah oo dhan ayaa sidaas u liita. wixii uu xaq u lahaa ee mudnaa ayaa riyo u ah oo uu naawilaa. dhidid ayaa dhaforada ka daaya. baakada sigaarka iyo seesarka horyaala ayuu ku shuqlan yahay. hawsha maankiisu hayo ayaase ka badan midda uu faraha ka hayo. neecawda xawle iyo iskaraaca laamaha geedka mooye sanqadh kale ma weheliso. danse kama leh oo jawiga qabow ayuu isagu dhididayaa. waa kaas ka fekeraya farxaddu waxay uga dhignayd. waa kaas xasuustay sidii ay ugu koobnayd farxaddiisu nacnac iyo qunjuraaf kale oo aan wax dhaamin. waxaa hor yimid dabakaayo yar oo ay daris ahaayeen. waa dukaan aan weynayn oo bagaashka yaryar ee nacnaca iyo wixii la halmaala lagu iibin jiray. meel ayay noloshiisa kaga taalay xilligii damala xagaree uu ku noolaa. sababtuna waa in farxaddiisa halkaa lagu iibin jiray. oo maxaa ka wanaagsan in aad taqaanid halka farxaddaada lagu iibiyo iyo inaad la socotid hadba sicirka ay joogto. dabcan waxba
qofka weyn haddii dareenkiisa la dhaawaco xafis wuu ku doorsan karaa shay qaali ah oo lagu xaalmariyey balse ma ilowsiiso dhaawaca, halka ilmaha yar ay kashiisu saafiga tahay xabad nacnaci wax kasta ilowsiin karto. isaga qudhiisa waxaa ku jirrabaya in uu tagtada dib u dheehdo waa murugada sabab-li'ida ah ee weynaantiisa la soo daristay iyo aragtida taban ee uu nolosha ka qaatay. fadhiga ayuu bedeshay oo ka fekeray wax kasta oo uu la noolaa, ku taami jiray uuna rajaynayay. ma garan mana xasuusan riyadii uu la noolaa yaraantiisa, maxayse sheegaysa oo ay agtiisa ka tahay hadda. kolley waa wax uu xaqiijiyey ama uu yasa hadeer baylood, dhakhtar, madaxweyne iyo wax la mid ah ayuunbuu ku taami lahaa ama uu ku jawaabay macallinku markii uu warsaday mustaqbalka wuxuu jecel yahay inuu noqdo. haddii uu intaas mid uun kusoo fekeray oo ku riyoon jiray samo-daraska carruurta ayuunbuu kala sinnaa. haatanse wax macno u sameeyaa ma jiraan. siyaasadda ama nidaamka dowladeed gebi ahaantiis ayuu kasoo horjeedaa. isku dulnoolaanshiyaha ayuu ku hiifaa. nolosha inteeda ugu yar ee qofi ku noolaan karo in lagaga gaabsado ayuu wanaag u arkaa. halkudhigiisuna waa the best goal is no goal. tanaasulka doonista iyo ka dhabaynteedu waa isla guryageyn. habdhaqankiisa marka la eego waa suufi, balse ruuxda uma go'in oo adduunka kama wada saahidin. falsafada ma necba, haddana iimo iyo eedo ayuu u hayaa falaasifada muran madhalays ah ayuuna ku tilmaamaa aragtiyaha iskulidka ah ee falsafadeed. waxa uu ku tilmaamaa in falsafadu ahayd oo daras xaqiiqada lagu baadhayay, qofkii ugu horeeyey dadaal uu sameeyey oo runta ku baadi goobay. dabadeed dadkii uu ula yimid iima ka dhex baadheen wixii uu sheegay iyaga oo maangalnimada halbee ka dhiganaya. sababtaas awgeed ayuu ugu arkaa hal abuurka ugu weyn ee aadamuhu inuu mandiqa ama maangalka yahay, balse mandiqa laftiisa in aan xaqiiqo lagu gaari karin ee uu yahay halbeeg fashiliya in aadamuhu isu goraya qaaqleeyo ayuu ku doodaa. taasna wuxuu sabab uga dhigaa in naanaysta faylasuuf ay wada qaateen qof wax maleeyey, aragti la yimid iyo mid wixii uu kaasi maleeyey iima ka dhex baadhay oo buriyey. sababtaas ayuusan aragti falsafadeed adduunka uga haysan. dhanka diimaha addoon wanaagsan ayuu u muuqdaa. anshaxiisa marka la eego wax ma xanto, wax ma caayo, waxna ma dilin waaqii haddii afka farta laga geliyo, ma qaniinin. balse haddana fagaagga haawanaya ee qalbigiisa iyo madhnaantiisa gudeed marka la fiiriyo kaalin kuma laha diintu. aragti kasta inteeda san ka qaado ayuu iska dhaadhiciyey, balse wuu ku hungoobay. ogobay insaanku qooqa iyo awoodda ayuu ahaanshihiisa ku muujiyaa. isaguna maadaama oo uu qaanuunkaas khilaafay, waa kaas liidka isu arkayay ee xasuusta miranaya. si uu isu soo helo wax macno u sameeya ama u sameeyey beri oo uu kula eerto noloshiisa. hal cabaar ah ayuu xasuuso hore iska jibaaxay, balse ugu dambeyn waxaa isu qaban weyday garaadkiisa curdinka ahaa sida uu isu waafajiyey habnololeedkiisa iyo riyadiisa lidka isku ahaa. su-aasha maankiisa gadayna waxay noqotay, maxaa sababay in farxadda ilmaha yari qiimo hoose joogto oo nacnac iyo wax la halmaala noqoto, wax walbana uu uga tanaasula marka la siiyo dhadhamo yar, isla jeerkaasna isagoo hiigsanaya waxyaabo waaweyn oo aysan qoyskiisu xaqiijin ama meel lagu hayaba uusan arag. ugu dambeyn waxa uu qiray in damca ah in qofku meel sare gaadho salka ku hayo anaaniyadda insaanka oo dhan ku abuuran. waa damca dhalanka ah ee qof walba faraha in uu soo taabto meel aan dadka kala gaadhin, tusiyana wax ay tahay in uu gaar u yeesho, ugu yaraan ku khasba marka waayuhu laba dibleeyo in uu yeesho hami aan laga filayn oo cirkaa jaran. intaas kadib wuxuu yaqiinsaday in nacnacaasi ahaa farxadda dhabta ah ee uu markaas garaadkiisu yaqaanay. isla jeerkaasna uu si toos ah waxa uga tari jiray duunkiisa, balse uu nacnacu ahaa barbilowga anaaniyadda qofka. mar walba oo uu xaqiijiyo wax weyna ay sii yaraanayso qanaacadiisu ilaa uu gaadhayo heerka ugu dambeeya ee ah in uu waayo wax ka farxiya marka uu murugoodo. sida qof irbad lagu muday ayay tiniya xidhib jiidhaco raacday. waxa uu xasuustay sidii uusan uga ilbixi jirin in lagu maslaxo macmacaan
si walba oo uu noloshiisa wax ku qaali ah u waayo. xataa markii aabihii dhintay ee uu dadkii ooyayay iskala ooyay, isagoo oo garanayn waxa uu la ooyayo in nacnac la siiyey oo uu aamusay ayuu xasuustay. ooyinta maalintaas seegtay ayuu 23 sano kadib dib u qaleeyay. ilin kulul ayaa dhabankiisa bidix hoos u roortay, dabadeetana isha midig ayaa iyana ilmaysay oo sidii oo kale dhabanka midig u qoysay. ilmadii waajibka ahayd ee uu iska riday ayuu iska tiray, wejigiisana ugu foldhoqay qoyaankeedii. qosol neef keli ah ayuu qoslay oo dhoolla cadeeyay, dabadeed niyadda iska yidhi ciyaalnimo waa ciil laga koro. qunyar ayay dhoolla cadayntii wejigiisa murugo iyo qabar isugu doorisay. laba kale qof inuu yahay ayuu qiray yaraantiisii iyo maanta oo uu garmaray bidaarina kusii siqayso. damiirkiisa manaxaanka ah ayaa duunkiisa galilyeeyey oo run uu isdiidsiinayay si aan tulid iyo saayiraadtoona lahayn. goor xun ugu sheegay, haah waad weynaatay oo weliba garaadsatay. sareeda iyo silic wixii aad sad u lahayd nolosha waad mudatay. keliyase hal mid baa ku seegtay, waa inaad quus tahay. xanaantaas ayaa duunkiisa ka hogmaysa. damiirku waa garsoor qofka iyo bulshada ku xeeran u dhaxeeya. marka habnololeedka qofku bulshada khilaafo ayayna ugu daran tahay oo damiirku qofka liddi ku noqda. waa sababta uu saacadan u soo jeedo ee nolosha, farxadda iyo qadiyadaha waaweyn u gorfeeya hadda iyo habeen kasta. qaybsan nafsadeed ayaa caawa ku dhacay. waxa uu loolan kula jiraa isla naftiisa. muranka ugu weynina waxa uu ka dhex taagan yahay weynaantiisa iyo yaraantiisii markee ayuu saxnaa. waxaa wada doodaya 10 jir ku noolaa damala xagaree oo qoys sabool ah ka dhashay, balse u hamuun qaba nolol wanaagsan. wax kasta oo uu aqalkooda ka waayana inuu helo rajaynaya. iyo 28 jir boosaaso ku nool, 4 sano uun dalka jooga, qariibnimona dareemaya. waa 7 sano oo uu jaamacad dibadda ah dhiganayay. waa uu soo dhameeyey oo barashada dhaqaalaha ayuu master ka soo qaatay. ifafaalaha ugu weyn ee isbedelkiisa waxa uu sabab uga dhigaa noloshii Masar ee uu 7 sano ku soo qaatay. isla muddadaas uu maqnaa, naftiisa waxa haystay baaxadeg, burbur iyo dhismo shakhsiyadeed ayaa gudihiisa hal mar ka dhex socday. liimbax dhaqan iyo gadgadoon afkaareed iyo salugmo badan oo uu bulshadiisa u hayo ayaa ku soo biiray. ladhka ku soo kaca ee uu ka qoomameeyo yaraantiisii waa in uu ka yimid bulsho sax iyo khalad loo yeedho. bulsho ishaafalatay ah oo garaadka iyo galadihiisa iska moosta. sababtaas ayuu tognaan buuxda ugu arkayay isbedelada ku socda. jaafajuglanimadii qofka Soomaaliga dhuuxiisa ku jirtay in ay ka baxayso ayuu aaminsanaa, welina qirsan yahay, maadaama gooni daaqnimadiisana midaas ayuu u aaneeyaa. dabuub waxa uu ka dhigtay iskuna qanciyay 7 guu horaantood in maanka aadamuhu isbedel u joog yahay, qofkuna ku qasban yahay in uu ka qoomamoodo kana yaqiiqsoodo waxa uu samayn jiray. midaas ayuu korriin u arkaa. waase korriin uu madi ku yahay oo keligii ku kooban. dhallaannimadiisii ayuu la masaynayaa noloshiisan dambe. hayaanka dheer ee uu soo maray in uu kan uu yahay noqdo oogadiisa kama muuqdo, balse uurkiisa marka la eego kiiba ma aha abadan. ma wiilkii yaraa ee caadifada, rajada, doonista iyo laablakaca badna ayaa isu bedelay axadkan quusta ah ee murugsan, maye aan waxba dareemin. farqiga weyn ee noloshiisa hore iyo hadda u dhaxeeya waa farqiga u dhaxeeya garaadku tooska, rationality iyo iimaanka. ruux daahir ah oo dadaalkeeda boos fiican ku mudantooda ayuu isla muuqday, haddase jirka ayuu kolkoolintiisa ku faraadaygay. la xagaree xasuuso murugo badan ayuu ku leeyahay. waa boog ku taalla taariikhda noloshiisa. agoonnimo ayuu ku soo koray miyiga isaga oo yar. 4 jir ah ayaa laga keenay. kolkii qoysku caydhoobay ayay xaroodeen. waa qoys kooban oo ciidan daran. waa hooyadii Timiro Seed iyo 2 hablood oo walaalihiis ah, Qadan iyo Waris. isaga ayaa ciidan u ahaa ilaa hooyadii nin kala guursaday. dharaartaas ayay Timiro u uunsatay kaahin. ayuu goostay in uu weysada ka biyeysto oo boosaaso aado.
qoodhi xere kuma heshiiso ayuu iska dhaadhiciyey oo goor aan habeenna ahayn maalinna ahayn gaadhay dhayna ah gurada uga baxay. sidaana kuu sagootiyey. waxa kaliya ee ku qasba waayahaas hore in uu dib u majeerto waa ruuxdii yididiilada badnayd ee aan damala xagaree dabadeed dib loo arag. geed mirimiri ah oo hortiisa ku beeran ayuu cabaar indhaha ku qabtay oo laan si qaab daran u baxday ku dhereeriyey noloshiisa. mawaaqiftii uu kelida ku gaadhay haddii uu qoyskiisa ku talagelin lahaa sidee ay noloshiisu noqon lahayd ayuu isweydiiyey. waxa uu se dhan ka dhaafi waayey sida geedkaas oo kale goyn maayee in uusan toosi lahayn. sidoo kalena uu yahay tusaalaha xun ee hooyo waliba ubadkeeda ka waanin lahayd marka dhaqanka la joogo. oo maxay kaloo odhan lahayd oo aan ahayn hooyo waxbaro oo anfac naftaada iyo dadkaaga, ama hooyo cabbi sigaar balwad oo dhanna kuguma ogi, ama hooyo cibaadayso oo weligaa ha ka tegin waajibaadka eebbe. hooyo wad-uun intaasba midna kuma dhaqmo, inuu ku dhaqmana taladeeda ma hayo. sideedaba talooyinka wanaagsan waxa ay toos uga yimaadaan ruuxda, waana fariin looga gol leeyahay in aysan arwaaxdu kala irdhoobin marka dunida ay ka wada tagaan. sababtaas darteed ayuu isaguna mar walba oo uu xasuusto hooyadii abaal ugu muujiya in ay arwaaxdoodu dib u midoobi karto. isaga oo sidii u dhakoola ayaa cod dheeri hal mar korkiisa ka yeedhay. waa aadaankii subax. waa uu jecel yahay codka wadaadkaas, walow uu leeyahay toos oo xaqa dhankiisa u iilo. isaguse markaas ayuu hurdo u holladaa. jirkiisii isgalgalay ayuu jimciyey oo hamaansaday, dabadeed aayar qolka galay. ma seexan waxa uu toos u abbaaray qalin iyo warqad aad moodid in lasii diyaariyey. qoraalna bilaabay. waa qoraalka fiirsi miidhan ah. marka uu dhowr sadar qorana qalinka dabadiisa ayuu foolasha ku yar qabanayaa kuna fakerayaa. marmarka qaar sigaar ayuu shidanayaa. muddo badan ayuu qoridii sidii u waday, wad ugu dambaynna saxiix foolxun ku qatin. intaas kadib inta uu sare joogsaday ayuu qolkii uu ku jiray indho hilowgu ka sokeeyo ku eegay. halka hortiisa gogol isdhex daadsan ayaa wadhan. waxaa dhinac yaalla seesar hamba sigaar ka buuxdo. waraqa googa-an oo duuduuban ayaa qolka dhexdiisa filiqsan. gidaarada magacyo taleefoono iyo sidoo kale sawir foolxumadooda dad iyo bahal mid ay yihiin aan la kala saari karin ayaa ku yaal. 7 bilood oo uu bilaa shaqo ahaa ayuu degan yahay gurigan. 2 bilood ee u dambeysay kiradooda waa lagu leeyahay. kama se welwelayo duruufaha noloshiisa, baadigoob shaqona kuma jiro. gidaarka qolka ayuu isha la raacay. weer ingiriisi ah oo far waaweyn ku qoran ayuu indhaha ku hakiyey. if you want to be happy, be. haddii aad doonaysid farxad, dee iskaba farax. waa falsafad uu in badan kusoo dhaqmayay. fikradda ah in uusan waxba sababayn, wax rajayn, waxna ka qoomamay. si degan ayuu warqadii buugga u dhexgeliyey. dabadeeto kursigii qolka dhex yaalay ayuu iska dhookeeyey sida dudun, oo haddana si miisaaman kursiga dhigihiisa ugu sii istaagay. xadhig qool leh ayaa cabaar hortiisa lalmaday. ugu dambaynna qoolkii ayuu qunyar madaxa la galay. kursigiina suulka midig ku lacday. dhulka ayuu aayar uga soo go'ay kursigii. isagiina isla markiiba lugaha ayuu ka firigsiiyey, indhahana ka birbirsiiyey. dabadeedna qunyar ayuu dhaqaaqii lugaha iyo gacmaha u joojiyey. naftiina sidaas ayay kaga agoogtay. cabaar ayuu sida maro xadhig saaran oo dabayli ku soo dhacday hor iyo gadaal u lalmaday. ugu dambaynna istaag abadi ah, isagoo carabka iyo labada indhood oo isku midab eekaaday dabadda joogaan.